xaflad si ballaaran loo soo agaasimay isla markaana lagu soo dhaweynayay taageerayaal ku soo biiray xisbiga talada haya ee Kulmiye ayaa lagu qabtay hotelka Maasha Allah ee magaalada Shiikh waxaana ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Maxamed Cismaan Xaaji Axmed iyo mas'uuliyiinta xisbiga Kulmiye ee degmada Shiikh sida gudoomiyaha xisbiga ee degmada gudoomiyaha kaambeynka odayaal cuqaal waxgarad waayeel iyo taageerayaasha xisbiga ugu horeyn maayarka magaalada Shiikh Ibrahim Cabdullaahi Cabsiye ayaa halkaas ku soo dhaweeyay taageerayaashii ka soo qayb galay munaasabadan haddii degmada Shiikh nahay tuulooyin kale waa la tagayaa mid walba saasa loo camirayaa mid walba saasay isaga muujinayna jawaabta maanta halkan ay beeshu isugu timi ee xafladda sharafta badan loo qabtay munaasabadeedu waxay ku saabsan tahay ismuujinta mowqifka reerku ay taagan yihiin iyo cidda ay raacsan yihiin majority-ga reerku raacsan yahay sidoo kale waxa iyaguna halkaas khudbado kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiinta xisbiga ee degmada sida gudoomiyaha kaambeynka iyo gudoomiyaha xisbiga ee magaalada Shiikh ujeedka xafladani waxa weeyaan loo tus loo qabtay ayuu qabanay xisbiga Kulmiye taageerayaal aad u tiro badan oo maanta muujinaya xuduudooda iyo taageerada ay u hayaan xisbiga Kulmiye in xuduudii iyo taageeradii iyo maalkii iyo muruqii beelweynta Axmed Xasan iyo gaashaanbuur maanta ay soo garab istaagaan caaqilka beesha ku soo biirtay xisbiga ee Axmed Xasan caaqil Nuur Siciid Allaale ayaa isaguna halkaas ka hadlay waxaan iftiiminayaa haddii aanu nahay beesha Axmed Xasan ee ballaaran faaciiduna ugu badan yahay dadka deegaamada gobolka Saaxil inaanu markii hore iyo maanta intaba aanu la garab taaganahay codkayaga iyo mugayaga iyo miisaankayaga xisbiga Kulmiye gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Maxamed Cismaan Xaaji Axmed gaar tahay inay iscadeeyaan oo mowqifkooda iyo xuduudooda ay ugu taageerayaan xisbiga Kulmiye maanta ay dowladdu ku sameeyaan ayay afladan u dhigeen runtii waxaan jecelahay sababta keentay maanta in halkan la isugu yimaado in lala jaan qaado madaxda kale ee soo raacday iyaduna gobolka Saaxil si ay uga qayb qaataan xuduudoodana u muujiyaan ayaa keentay inay beeshu qabsato shirkan iyo taladan labadaba isku soo wada duubo dhammaan taageerayaashii odayaashii waxgaradkii haweenkii iyo waliba dhalinyaradii ka soo qayb galay munaasabadaasi ee khudbadaha kala duwan ka soo jeediyay ayaa halkaasi ka muujiyay taageerada cududda iyo miisaanka ay u hayaan xisbiga talada haya ee Kulmiye Siciid Axmed Tamreyse telefishinka caalamiga Star magaalada Shiikh